بداية الصفوف العمرة وين ما تميل إدريس ديبي فارس ليه ما في مثيل. madaxweynihii dalka Chad Idriss Deby ayaa ku baxay dagaal ka dhacay dalkaasi Chad oo u dhaxeeyay ciidamada dalkaasi Chad iyo jamhadda fallaagada ee ka soo horjeeda dowladda dalkaasi Chad. Idriss Deby ayaa waxa uu ku baxay howlgalkaasi kadib markii dagaal culus oo dhex maray ciidamada dalkaasi Chad iyo Maleeshiya hubeysan uu ka dhacay waqooyiga xadka uu la wadaaga dalkaasi Liibiya iyo dalka Chad. Idriss Deby oo la doortay Isniintii la soo dhaafay markii lixaad xilka madaxtinimada dalkaasi Chad ayaa waxa uu ku dhintay howlgalkaasi kadib markii dagaal culus oo saacado badan socday uu ku dhex maray ciidamada dalkaasi Chad iyo ciidamada jamhadda ka soo horjeeda dowladda dalkaasi Chad oo ay dowladda Chad ku tilmaantay koox argagixiso. Idriss Deby oo muddo ka badan 30 sano xukunka ku fadhiyay ayaa waxa uu maanta soo gabagabowday noloshiisii kadib markii uu dagaalkaasi culus uu ku baxay dagaalkaasi. ciidamada dowladda dalka Chad ayaa waxa ay sheegeen in ay muddaba howlgal halkaasi ka wadeen iyaga oo sheegay inay soo celin doonaan kala dambeyntii iyo waliba nidaamkii ka jiray gobolkaasi oo u dhaxeeya xadka Liibiya iyo Chad u dhaxeeya. maalintan wixii la soo dhaafay ee doorashada ay socotay ayaa waxaa soo weeraray kooxahaasi fallaagada oo ka soo duulay xadka Liibiya uu la wadaaga dalka Chad iyaga oo dhul badan oo dalkaasi Chad ka mid qabsaday. Idriss Deby ayaa kadib markii lixaad loo doortay howlgalkaasi uu sheegay in uu bilaabi doono howlgal ka dhana jamhadaasi isaga oo sheegay in gabi ahaanba ay cagta marin doonaan kooxahaasi khalkhal ku haya buu yiri ammaanka dalka Chad. Idriss Deby oo 1990kii loo doortay madaxweynaha dalkaasi Chad kadib markii kacdoon ka dhacay dalkaasi Chad uu ku guuleystay ayaa waxa uu muddaas xukumayay isaga oo sheegay in dalka Chad uu gaarsiiyay barwaaqo sidoo hadalka u dhigay Idriss Deby intii uu noolaa. waxaa hadda soo gabagabowday muddo ka badan 30 sano oo xukumayay dalka Chad isaga oo maanta ku baxay howlgal ka dhacay dalkaasi Chad oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda qaranka Chad iyo waliba jamhadda fallaagada ee ka soo horjeeda. in badan ayaa sidan oo kale ay iskugu dayeen kooxahaasi la dagaalamaya dowladda Chad inay afgambiyaan laakiin waxaa ka caawinayay dowladda dalkaasi Faransiiska oo horey u gumaysatay. dhinaca kale wiil u dhalay oo madaxweynihii dalkaasi Chad ee maanta la dilay oo lagu magacaabo Mohamed Kaka ayaa loo dhaariyay xilka madaxweynenimada dalkaasi Chad isaga oo sheegay inuu gabi ahaanba bandow ku soo rogay dalkaasi Chad oo sheegay in maalmahan soo socdana uu xukunka si toos ah ula wareegi doono. wiilkan oo lagu magacaabo Mohamed Kaka ayaa waxaa telefishinka qaranka dalkaasi Chad si toos ah looga shaaciyay inuu la wareegay xukunkii madaxtinimada dalkaasi Chad isaga oo sheegay inuu soo celin doono nabadda iyo kala dambeynta. waxa uu sheegay inuu sii wadi doono howlgalkii uu ku baxay aabihii waa sidoo hadalka u dhigay Mohamed Kaka oo ahaa wiil u dhalay madaxweynihii dalkaasi Chad Idriss Deby oo maanta ku baxay howlgal dhex maray ciidamada dalkaasi Chad iyo waliba jamhadda fallaagada ee ka soo horjeeda dalkaasi Chad. شكر يا لساني وغني للعنتيل الحركة ملطام بخوض عز الليل. بداية الصفوف العمرة وين ما تميل إدريس ديبي فارس ليه ما في مثيل.